kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warar dheeraad oo ka soo baxaya canugii lagu xaday isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe dheh kadibna ku dhufo calaamada gambaleelka ah si ay kugu soo dhacaan wararka aan halkan soo gelino. markana degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa la sheegay in lagu qabtay haweeney canug ka soo xaday maalin ka hor isbitaalka SOS ee degmada Hiirwa ee gobolka Banaadir. canugaas oo dhalnaa wax ka yar 24 saac. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa la sheegay in qofkan dumarka ah ee canuga soo xaday iyo haweeney kale oo la socotay iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ah in hal guri ay ka soo qabteen waxaana hadda lagu hayaa xarunta dambi baaris ee ciidamada booliiska Soomaaliya CID. aabaha dhalay canuga awowgii iyo sidoo kale maamulka isbitaalka SOS ayaa si wada jir ah igu xaqiijiyay in la aqoonsaday qofka dumarka ah oo ay noqotay haweeneydii maalmo iyo saacado lagu arkay isbitaalka SOS gudihiis taas oo markii dambe xaday canugaasi laakiin ma jirto aqoon iyo faahfaahinta dhaafsiisan oo laga hayo. waxa kale oo ay sheegeen in aqoonsadeen canug oo loo geeyo hooyadii dhashay waxaana dib loogu celiyay isbitaalka SOS hooyada iyo canugii la xaday iyo waalidiinta intuba. ciidamada booliiskana waxay la hareen hooyada xatooyada geysatay iyo qof kale oo dumar oo la socotay iyo wiil dhalinyaro ah. wixii warar ay ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa waxaana goordhow idin soo gudbin doonaa wareysiyo arrintan ku saabsan. fadlan si aysan ku dhaafin subscribe dheh kadibna ku dhufo calaamada gambaleelka ah